السلام عليكم أصحابتا qaaliga kusoo dhawaada channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties waa walaashin Mema oo idin wado muuqaal cusub fadlan haddii aad channelku cusub tahay subscribe inoo saar haddii aad hore inoola joogtay soo dhawow qaybta commentiga ha laga arko ha ka hilmaamin muuqaalka inaad like inoo saarto waa like waxay ka caawinaysaa inuu dad badan gaaro haddii aad wax araha qabto fadlan qaybta hoose commentiga igu reeb aad iyo aad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan kusoo dhawow muuqaal cusub waxaan idin wadaa kabaab oo ah tuna kabaab malay aad iyo aad u ah softi tasty wanaagsan leh ama aad iyo aad u macaan tastigiisa sida u jeedaan aadna u jilcan yahay waa ka kabaabkeeni waxa uu ka samaysan yahay oo ah malay iyo qudaar aad iyo aad u badan asxaabta qaaliga sida u jeedaan waa kanaasi qurux badan ayuu kusoo baxay kabaabkeeni laba nooc ayuuna yahay nooc yar dhaadheer iyo nooc yar ballaaran sida u jeedaanba qaabkan ayaan u soo diyaariyay tuna kabaab malay waxa uu ka diyaarsan yahay gasacadaha malayga oo aad taqaanaan hore waxa u soo galay muuqaal aan ka soo diyaariyay kabaab oo ah malayga waliba nooca dalkeena haddii aad doonto hilib waad ka samaysan kartaa malayga midka dalka iyo midka gasacadaha ee dibadda ka yimaadaba waad ka samaysan kartaa hadba waa adiga iyo dooqaaga si allaale sidaa doonto ayaad u samayn kartaa kabaabka waxaan rabaa inaad idin tuso waxyaabii aan ka sameeyay malaygeena oo tuna kabaab malay ah sida ujeedaanka waxaa igu diyaarsan laba gasac malay ah gasacan malayga waxaa la dhahaa habo ayaa la dhahaa oo tuna malay waaye sida u jeedaan asxaabta qaaliga waan soo diyaariyay malaygeeni saliida iyo waxyaabihii uu ku gasacdeysnaa sida ognahay ayaan ka miiray waan qalajiyay halkana ukun ayaa iigu diyaarsan oo ah hal xabo ukun ah ayaa iigu diyaarsan halkana waxaa iigu diyaarsan laba xabo oo ah basal iyo barbarooni sida u jeedaan asxaabta qaaliga halkana waxaa iigu diyaarsan kabsarti oo aan ku carfin lahaa kabaabkeeni sidoo kale laba xabo tuna ayaa halkan iigu diyaarsan oo aan rabo inaan ku daro kabaabkeena waxaa halkan iigu diyaarsan tuntii oo aan soo jarjaray sida u jeedaanba asxaabta qaaliga waxaan kor darayaa ukuntii oo ii diyaarsaneed ayaan ku kor daray waxaan ku kor darayaa laba qaando oo bur ah oo aan rabo inaan ku adkeeyo kabaabkeena si markaan dubaayo uu adeeg igu ahaado waxyar hal qaando shiishiid ayaan ku daray haddaad doonto shacfaraan waa isticmaali kartaa ama food colorka nooca jaalada ah kabsartii ayaan kusii daray sida u jeedo haddii aad wax makiinad haysan sidan ayaad u jarjaran kartaa qudaarta haddii aan lahayd basasha barbarooniga iyo karootada haddii aad haysato oo aad rabto inaad ku darsato haddii aad makiinad haysanin waxaa waaye way kuu fududahay inaad jarjarto oo aad sidaan u yaryaraysid weliba zaaid ayaad u yaryareynaysaa wax walbo waxaa waaye wixii aad haysato ayaad ka samayn kartaa kuma xirno inaad wax kale aad raadisid muhiimada idin tusaayo waxay tahay inaad ogaataa inaad ka maarmi kartaan makiinadii lagu shiidi lahaa qudaarta haddii aadan haysanin waad jarjaran kartaa adiga oo zaaid u yaryareynayo sida hadda aan idin tusinayo ani laakiin waxaan rabaa inaan isticmaalo makiinada balse waxaa waaye inaad idin tuso inaad idinka gacantiina ku jarjaran kartaan si aad ogaataan in aadan u baahnayn waxyaabaha aadan haysanin oo guriga ka maqan oo kale marka waa ka asxaabta qaaliga oo idin sheegay muhiimada u jarjarayo basasha inay tahay in aan makiinad hadaan haysan aad ka maarmi kartid oo kale laakiin ani waxaan rabaa in aan ku shiito makiinada basasha iyo barbarooniga si fudud waa ka uma hal mar ayaa xitaa haddaad doonto iskula ridi kartaa makiinadana bareeskaas ayay leedahay jaajar ayaana laga gelinayaa oo koronto ayay ku shaqeynaysaa kuwo qaar waxaa jiro gacanta ku samayn kartid oona koronto u baahnaynin waa ka sida ujeedaan waxaan ku riday basashi iyo barbarooniga labadoodaba hal mar ayaan rabaa inaan shiido way ii jarjaraysaa weliba si yaryar ayay ka dhigaysaa si fudud waqti badanna ma qaadayso sida ujeedaan asxaabta qaaliga waa ka basashi barbaroonigana waa soo diyaariyay weliba ayaga oo makiinada si fudud aan ugu habeeyay inkastoo markaa gacanta ku sameynaysid ee xoogaa waqti qaadanayso haddana laga yaabay inay ku yaro dhibaan laakiin makiinada waxaa waaye howl fududeys waaye sida ujeedaan hadeerna basashii barbarooniga oo ii diyaarsan ayaa waxaa ku shubanayaa ukuntii iyo shiishiidii haddaa isku daray iyo tuntii ayaa waxaa kor darayaa basashii barbaroonigii oo aan rabo inaan ka sameeyo kabaabka
marka sida hore idinkugu sheegay waxaa hore iigu diyaarsanayo kale malaaygeeni oo aan ka miiray saliida asaga oo qalalan. marka waa kan waxaan ku kardarayaa malaaygeeniina waan ku korshubaya. mar walba iska ilaali malaayga in aad yacni asagoo qoyan aad ku shubtid, waayo wax qoyan ah looma rabo. maadaama aad dubaysid oo saliid yacni dabka aad ku dubaysid, haddii uu qoyan yahay oo kale burkan waxaa waaye bur badan ina isticmaashid ay kugu qaadanaysaa. aniga 2 qaando bur ayaan isticmaalaya, intaasna way igu filan tahay. burka muhiimada u isticmaala waxay tahay inuu ii dhajiyo marka aan saliida aan ku dubayo kale in aysan iga kala firxanin. malaaygeena waa ka gasici labaad ayaa ku shubaya. qudaartii ii diyaarsaneed waxa waaye malaayga sida idin sheegay waa malaayga gasacadaha waaye. hadaa doonto kabaabka waa ka sameyn kartaa, malaayga dalka iyo sidoo kale chicken hadaa rabto ka sameyn kartaa. haddana waa ka cusbada shiidan oo wax yar ayaa ku daray. waxaa kaloo ku daray bariis maceeyo oo qaande ayaa ku daray si yacni oo caraf oo dhanaan leh ii siiyo. sidoo kale waxaa ku daray chicken masala oo kulul oo yacni kulal yar ayuu ii siinaya. qaando oo xawaaji shiidan ah ayaan ku shubay. sida u jeedaanba qudaarteeni waan u dhameeyay. filfil yar ayaa ii hartay oo aan ku daray si kuleel ay igu siiso filfisha ayadana. gacanta ayaan soo dhaqday oo aan rabaa inaan ku qaso. haddii yacni aan dhoo qaanda isticmaalaya si fiican ma isku dhex galayaan, marka gacanta ayaan rabaa inaan isku dhex geliyo si qudaartii iyo malaaygii iyo burkii ay isku dhex galaan. waa ka waan qasayaa malaaygeeni iyo qudaartii aan rabnay inaan ka sameysano kabaabkeena. sida u jeedaan waa inaad si fiican isku dhex gelisaa. markaan oo kale waxaa waaye carafta zaidka adiga ka dareemayo. haddaa u baahan tahay oo kale badanaa waxaa lagu isticmaalaa in karooto lagu daro kabaabka iyo basal iyo barbarooni sida idin sheegay. karootada kaliya ayaa ka dhigneed haddaadan haysan waxyaaba qaar waxaa jiro laga yaabo markaas inaadan helin ani yacni ku oolin waa iska dayn kartaa. muhiimada waxa ay tahay in qudaaraha yacni oo kale aa haysatid hal shay oo ka maarmi kartid aa jiro, laakiin waxyaaba aadan ka maarmi karin sida kabsarta iyo waxyaabaha oo kalarka siinayo haddii ahaan lahayd shiishiida ama sidoo kale shacfaraanka nooca cuntada kalarka ah kama maarmaysid. marka kabaabka 2 nooc ayaa loo sameeyaa, nooc yara dhaadheer iyo nooc yara balbalaaran ayaa loo sameeyaa. nooca doontid ayaa u sameysan kartaa, hadaa doonto 2 nooc waa u sameysan kartaa. muhiimada waxa ay tahay inaad kabaab aad sameysatid. qaabka u sameynaysidna waxaa waaye hadaa doonto nashqad kale adee waa alifan kartaa. sida u jeedaan saliid ayaa dabka soo saaray waana ka gaabiyey. muhiimada aan dabka u gaabiyey kabaabka waxa ay tahay maadaama uu jilcan yahay mar rabo saliid haddii ay zaid u kulushahay yacni wuu kala tagtagaya dhoodina ma kuu dumaayo ama wuu kaa gubanaya. halka waxaa igu diyaarsan saxanka aan saari lahaa kabaabkii. waxaa kor saaray tiish ayaa kor saaray. tiishka wuxuu iga qalajinayaa saliida kabaabka ayuu iga qalajinayaa, yacni saliida dhex gashay qaleel ayuu iga dhigayaa. waa fahamteena filaya. sida u jeedaa hadda dabku ii soo yar kululaaday waxaa ku ridaya waxay tahay kabaabkii ay ku dhex ridaya oo ii diyaarsanaa. waa ka kabaabkeena uu is haystaa. haddii saliida aad ku dhex ridid waxaa rabaa si aayara inaa qaandada yacni aa ugu isticmaashid ama waxyaaba aad ku bixinaysid. haddii aad si zaid yacni xoog u isticmaashid oo kale waxaa dhacayso in kabaabkii uu kaa kala go-o, markaasoo kalena uu kaa xumaanaya. balse haddii aad si aayara u isticmaashid saliida aad ka gaabiso oo dab gaaban aad ku dubtidna wuxuu ku noqonaya si fiican ayuu kuugu dubmaya. mana kaa kala go-go-ayo kabaabkii aad dubanaysay. sida hadda aa u jeedaanba waa ka asxaabta qaaliga. waa ka kabaabkeeni waa angagadiye oo wuxuu ka samaysan yahay malaayga gasacada sida idin sheegay. ayar ayaana u gagadiyey. sida ujeedaan gaduud ayuu kusoo baxayaa. waxyaabaha kor ka muuqda ujeedaan oo cagaarka ee kabsarta waaye. kabsarta waxay kuu siinaysaa qurux ayay kuu siinaysaa, sidoo kale dhadhan wanaagsan iyo carafna way kuu siinaysaa. kabaabka waxyaabaha laga maarmi karana kama mid ahan. waa ka marka asxaabta qaaliga kabaabkan ma aha kabaabka ugu horeeyay aan soo gelinayo channelkayga. waxaa jira kabaabka hore aan soo geliyay oo aan ka sameeyay malaayga dalka. halkanna waa malaayga gasacadaha oo aan ka sameynayo kabaabka. hadaa doonto waxaa ka sameyn kartaa chicken ayaa ka sameyn kartaa, sidoo kale waxaa ka sameyn kartaa hilib, sidoo kale waxaa ka sameyn kartaa malaayga dalka ayaa ka sameyn kartaa. nooc walba adig aa heli kartid ayaa ka sameyn kartaa. adiga oo shiidayo oo yacni makiinad ku shiidayo sida malaayga iyo hilibka iyo chickenka marka aad rabto inaad ka sameyso kabaabka oona qalajinayo. waa fahamtaa filaya dhammaantiinaba. hadeerna waa kana qaybteeni hore way soo bislaatay. kabaabkeeni waan ka saarayaa sida u jeedaanba oo yacni waxaan ku ridanaynaa saxankii inoo diyaarsanaa. marka aan kabaabka aan sida uga saaro yacni oo aan tiishka ayaa iga qalajinayo saliida oo hadda aan maadaama saliid aan ku dubay oo wax walbo saliid lehna waxaa waaye waxaa fiican in saliida aad ku taxadirtid sidii aa uga qalajin leed, maadaama marka aa cunaysid oo kale yacni oo loo baahnayn
ahayn wax saliid ah yacni in aad ka dareentid ama markii aad dad siinaysid oo kale. midda xigta haddii aad rabto inaad isticmaasho chicken masala oo tusaale ahaan markii aad kabaab samaynaysid ama waxyaabo kale oo dad marti ku imaanayso nooca hodka ah waa iska daynaysaa. waxaa isticmaali kartaa nooca aan basbaaska lahaynin. ani waxaan jeclahay nooca basbaaska leh xoogaa kuleel yar in uu ii siiyo. sida ujeedaan hadda waxaa kusoo riday qaybtii labaad kabaabkeeni oo ah qaybta ugu dambeeyay oo aan dubayo. waa ka saliidana way yara qabowdahay oo zaaid uma kululo yacni way diiran tahay. sida ujeedaan si tartiiba ayaa u dubaya kabaabka. asagoo marka kabaabka aad samaynaysidna sidaan oo kale ayaa ku haboon. waa kusoo wada riday dhammaantiisaba kabaabkii aan sameynaaye. ayar ayaana u gadinaya horena waa idinkuugu sheegay. aniga ujeedaana u maleynaa saliidda waxaa waaye nadiif waaye wax kabaab ah oo iga kala go-ay ama difeeta yar xitaa ay soo gaartay ma jiro. qaandada marka aad ku waxeynaysid aad ku gadinaysid waxaa loo baahan yahay tartiib inaa yacni si ayar ah aa u gagadisid. sida haddaani aa iga dareemi karto oo kale qaabka u gadinayo waa u yaro dhibaya laakiin hal mar haddii aan xoog u isticmaalo waxaa macquul in kabaabka uu kala firxado saliidiina waa iga halaabaysaa. kabaabkiina sidoo kale waxaa iga soo gaarayo difeeto yacni wuxuu noqonayaa mid oo markaas iga kala go-ay. anina ma rabo si tartiiba ayaan u gadisanaya oo aqli ah. waa fahamteen aan filayaa. markii aad wax dubay sidoo kale wuxuu u baahan yahay dabka inaad ka taxadarto. sidoo kale wixii aad dubaysid inaad qurxiso. markii aad wax dubaysidna waxaa waaye ma kusii jirto waqti ayaa ayadan u baahan tahay inaad fikir dheeraada usii yeelatid wixii aad dubaysid ama wixii aad dubaysid markaa iyo saliidda adigoo taxadar weyn muujinayo oo kale. marka asxaabta qaaliga waxyaabahaniti steebyadan waxaa loo maraya waxaa waaye idinka dartiina si muuqaalka la idinku soo gudbinayo uu u noqdo muuqaal qurux badan aad uga heshaan. muhiimadda waxaa waaye inaan idinla wadaago wax qurux badan iyo waqti oo yacni aad u kooban. sida ujeedaan muuqaalka hadda aan duubayo oo kale waxa uu qaadanaya adi xoogaa wax yar iyo 10 daqiiqo si dadka daawanaya oo kale u dareemin wax caajis ah ama wax yacni inayna ka caajisin daawashada muuqaalka ugu talagalay. waa ka kabaabkeeni asaga qaybtii labaad waan gadiyay. sida ujeedaan qaarkii bislaado waan kasoo saaraya si yacni markaaseeti uu u noqdo inta kale yacni ay usii dubanto. intan kale maadaama ay dubantay ayadan igaaga gubanin. wax walbo yacni waxaa waaye haddii ay bislaadaan ay u dhammaado waqtigii ay ku bislaa lahaayeen uu ku dubmay waan kasoo bixiyay. muhiimadda waxay ahayd in aan dubo marka ma isla sugaayo. sida ujeedaan mid walba markii uu bislaado waan kasoo saaraya si yacni kuwa kale ayagana aan markii ay bislaadaan oo waqtigooda la gaaro yacni aan dareemo inay dubmeen oo kale aan kasoo bixiyo. marka sidaan u arkaysid oo kale kabaabka waxaa is leedahay bejimiya laakiin kabaab waaye balse markii aad dhadhamisay oo kale ayaa waxaa dareemaysaa ama aa caadi ahaan aa u aragtid oo kale in waxan ay yihiin kabaab ay yihiin. waxaana ka dareemi kartaa ku garan kartaa qudaartii aa ku dartay caraftii malaygii wixii oo dhan oo iskaashaday. asxaabta qaaliga sida ujeedaan xabadii ugu dambeysay ayaa ii hartay kabaabkeeni aan soo dubanaynay. waxaan ka saaray xabadii ugu dambeeyay ayaan ka saaray. sida ujeedaan asxaabta qaaliga saliidiina waan iska dejiyay. waa kan kabaabkeeni quruxda badnaa aan idin soo diyaariyay qaabkan ay kusoo baxay. liintan waxaa ugu talagalay in yacni qurux ay siiso kabaabka. isticmaal ahaan haddaa u baahdan waan isticmaali karaa. marka waa ka sidan ayuu kusoo baxay. dhexdiisa haddaa fiiriso kabaabka waxaad dareemaysaa in uu soft yahay oo kale markii tusaale ahaan sidan aa u tijaabiso. waa ka dhexdiisana qudaarta ayaa ku dareemi kartaa ee ku jirto. laakiin markii adi aragtid oo kale markaa qaabkan kabaabka u dubto carafta iyo dhadhanka wax laga sheekeyn kara ma aha. waxaa waaye tasti wanaagsan ayuu leeyahay iyo waana sidoo kale aad ayuu u yahay softy. sida aragteen hadeertaanba ka dheehan kartaan qudaarta ku dhex jirtana aad iyo aad ayaa u arki kartaan. asxaabta qaaliga aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkaneti. waxyaabo badan ayaan soo gali doonaa insha allah oo ka duwan. aad iyo aadna waan kaaga mahad celinaya waqtigiin aa kusoo daawateen muuqaalkan. fadlan haddii aad channelka cusub tahay ka hilmaami inaad subscribe inoo saarto. haddii aad hore inoola joogtayna soo dhawow qaybta commentiga ha laga arko. haddii aad ka heshay muuqaalkan oo wax arah qabtana xagga hoose ee commentiga igu soo gudbi. ha ka hilmaamin muuqaalka inaa laag saarto waayo laagtu waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. mac salaama.